Even little kids in 8th grade know that that is not an authority that the president has and can wield. ikhyaaray sida muuqaalka bilowga aan ku bilaabayba ilhaan cumar ayaa buudka la dulmartay madaxweynaha Mareykanka oo sheegay in waraqaha TBS aan Soomaalida la siin doonin hadii ay ka dhacaan. ilhaan waxay sheegtay oo tiri madaxweynaha Mareykanka sharci uma laha sharciyadna uma haysto in uu Soomaalida ku nool state-ka Minnesota uu diido waraqaha TBS-ka. xiisadan intii ay soo baxday ama waraaqda uu soo saaray madaxweynaha Mareykanka ayaa siyaasiyiinta xisbiga dimuqraadiga ay ugu horeysay ilhaan cumar iyo governorka state-ka Minnesota Tim Walz iyo sidoo kale Attorney General-ka state-ka Minnesota shacabka Soomaaliyeed ayay berber istaageen khudbada ayayna qabteen. marka arrintii waxa soo dhaxgashay wasiiradii ay sida khaaska u khuseysay wasiiradii amniga gudaha ee dalka Mareykanka oo ka hadlaysay xaflad ama munaasabad lagu qabtay magaalada Minneapolis oo ay ku guddoonsiinaysay shaqaalaha TBS lacago abaalmarino ah oo shaqaalihi u adkaysay intii yani ama muddo shutdown-ka dawladda Mareykanka ay ku jirtay shaqaalihi u adkaysay aan shaqadooda ka tagin ayay lacago abaalmarino siinaysay. marka waraqahan TBS waxa bixisa wasaaradda amniga ee dawladda Mareykanka ayaa bixisa. marka xafladda iyadoo ka hadlaysa ayay Christine Noem u jawaabtay ilhaan cumar aan dhageysano. Well, TPS is a program that was always meant to be temporary. It's a program that is put in place, and I believe for Somalia over 30 years ago, and will need to be evaluated to make sure that it comes and is always implemented in the process for which it was intended. So that's something that will go forward, and I know that the President wants to bring integrity to our programs and make sure that they're applied appropriately to the individuals and to the countries to which they're supposed to benefit. ikhyaaray dadkan Ingiriiska aqaanin Christine Noem waxay sheegtay yani in arrintan waraqahan TBS-ta ee Soomaalida la siinayo in la soo bilaabay 30 sano ka hor 1990kii ayaa la soo bilaabay sida aan jeclay. marka waxay tiri dib u qiimeyn baa lagu sameeynaya oo waxa la qiimeynayaa oo wasaaradda amniga gudaha ee dawladda Mareykanka ay qiimeyn ku sameynaysaa shakhsiyaadka u qalma in ay mar labaad apply gareeyaan ama codsadaan waraqaha TBS. marka hadalkaasi ugu jawaabtay ilhaan cumar waxay sheegtay madaxweynaha Mareykanka inuusan marnaba sharci u lahayn in uu ka hadlo waraqaha TBS arrin khusaysan aysan ahayn authority awoodna uusan u lahayn. yani shacabka Soomaaliyeed ayaa lagu qaybsamay commentiyada laga bixiyay ilhaan cumar ayaa soo akhriyay. qaar waxay lahaayeen waxba nooma tareyside madaxweynaha hanagu dirin ayay soo qorayeen. qaar inta badan shacabka Soomaaliyeed ee ku sugan state-ka Minnesota ay u hambalyeynayeen. marka aan dhageysano ilhaan cumar oo buudka la dulmartay madaxweyne Trump sidoo kale ilhaan kaliya ma aha waxa goobta ku sugnaa Attorney General-ka state-ka Minnesota iyo sidoo kale governorka state-ka Minnesota Tim Walz yani saraakiishi ama dadkii xisbiga dimuqraadiga ee hogaaminayay state-ka Minnesota ayaa shacabka Soomaaliyeed berber istaagay maadaama dadka waraqaha TBS-ta haysta ay u badan yihiin dad shaqaysta qaarkood ganacsiyada qaarkood guryada ayaa jira. marka arrintan yani madaxweynaha Mareykanka uu iskaga hadlayo wax suuro galaysa male. marka dhageysi wanaagsan. It is unfortunate that we are led by a president who does not understand the laws of this land. That's right. When the president tweets as if he has the authority to terminate temporary protected status for Somalis in Minnesota, even little kids in 8th grade know that that is not an authority that the president has and can wield. Temporary status protection for Somalis expires March of 2026. And anyone with that status has 60 days after for it to have any impact on them. And so if you are confused, if you feel threatened, know that the law is on your side and our demented president can't do anything about it. The other unlawful thing that our lawless president is claiming to do so is to terminate that status
for only one state, which he has no authority to do so. So, for the 300 or so people that are impacted, that currently live in Minnesota and across the country, we see you and we stand with you, and we will make sure we do everything that we can to help make sure that your status is adjusted before March of 2026. daawadayaal haddaan intaa uga soo noqono hadalkii Ilhaan Cumar kulli Ilhaan Cumar maadaama ay Congress woman tahay oo aqalka wakiilada ee Mareykanka ay ka tirsan tahay sharci dejintana ay ku jirto sharciga si fiican bay u taqaanaa waxay sheegtay yani waxay tiri madaxweynaha Mareykanka sharci uma laha waxay tiri waa madaxweyne intuu iska soo tooso markuu habeenkii subax markuu soo tooso ayuu wuxuu doonay isaga dhawaaqa oo ku hadla marka waxay tiri sharci uma laha awoodna uma laha in uu bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan state Minnesota in uu diido waraaqaha TBS ayay tiri ma sha Allah shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan state Minnesota يعني waxa berber taagan governorka Minnesota oo nin dimuqraadi ah Soomaalidan aad ugu dhow oo xataa dawladdu ay ku eedeysay Soomaalida markay corruptionka ku kacday inuu san dan ka lahayn oo uu isaga uu ka fikirayo in codkiisa uu helayo dadka yani lacagaha musuqmaasuqay ee our freedom future iyo lacagta autismka loogu talagalay in lacagta maxaa loogu talagalay dadka waayeelka iyo in guriga lagu sii dadka guri la'aanta waxaas oo dhan waxa lagu eedeeyay Soomaalida inay lunsadeen malaayiin dollar inay lunsadeen marka jamhuurigu waxay leeyihiin ninkan Soomaalida ayuu waab ka dhigtay danna kamula Soomaalida khalad iyo sax haday sameeyso marka ninka adag ee derbiga ayaa idin la jooga oo idin jooga sidoo kale gabadhiina Ilhaan Cumar oo sharciga aad u taqaan ayaa idin la joogta sidoo kale waxa idin la jiray attorney generalka state Minnesota oo xeer yaqaanade yani marka sinaba laguma walbahaariyo Mareykanku ma aha sida Uganda iyo Ethiopia oo kale Soomaaliya oo kale oo waxay madaxda haysata ay ku hadlaan subaxii la fulinayo Mareykanka waxa ka jirta sharciyadu way kala sarey state ku sharci uu leeyahay muxuu ahay federal ku sharci uu leeyahay sharciyaa jira marka teeda kale xeerka ama wasaaradda samaysa TBS ka samaysa iyagu qorshahoodu ma aha state qowmiyad state kaliya ku nool in la target gareeyo wasaaraddu wadan kasta xaaladda dhaqaale iyo midda amni uu ku sugan yahay ayay fiiriyaan kadib ayay u ogolaadaan muwaadiniinta wadanka ka soo jeeda in ay sharci u heli karaan ama ay xaq u leeyihiin in waraaqaha TBS la siiyo ayay wasaaraddu qiimaysaa marka dadka Soomaaliyeed ee ku nool state Minnesota waxaan u soo jeedinayaa in ay ka dambeeyaan oo haddii ay khalkhal dareemaan markii la gaaro March oo waraaquhu ay dhacaan hadday arkaan federal agent